anigu qofka runtii marka la igu sheego inuu musuqmaasuq yahay waa iga dhintay marka la igu sheego qofkaas inuu qabiil ka shaqeeyo waa qof maan gaaban aan developed ahayn qofkaasna bulsho uma adeegi karo haddii shaqa laga siinayo qabiilkiisa iyo dhaqameedkiisa la shaqeynayo ag fariisanayo taasaa u bannaan laakiin ummad intuu soo dhex fadhiisto oo soomaali oo dhan ah laguma hadleyn karo maxaa yeele caqligiisa aad u yar scoobkiisa maskaxdiisa aad u yar marka qofkaasi ummad looma dhiibi karo waxbana ma qaban karo maxaa yeele wax walba waxaa uga horeeya inuu qof aan mudnayn uu howl gashado wuxuuna ku howl gashanayaa waa bar garanaya qabiil rabaan wax ku siiyo qofkan ma laha dib u dhiska muxuu ka qaban karaa bilaacda muxuu ka qaban karaa dadka muxuu adeeg u geyn karaa shaqadiisa maaha qofkan waa bar garanaya waa isagaa mudan aqoon kuma fiirinayo karti kuma fiirinayo daacadnimo kuma fiirinayo marka qofkaasi waa qof caqligiisu aad u hooseeyo waxba looma dhiiban karo maxaa yeele systemkii o dhan iyuu ku cayaaraya qof musuq maasuq ka shaqeeyana ummad uma adeegi karo maxaa yeelay annaga waxbaan rabnaa inaan dhisno qof musuq maasuq ka shaqeeya waxbuu rabaa inuu dumiyo wuxuuna u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban oo maxay tahay guri dhiso war guriga xaggee ka dhisanaysaa hadday magaalada quruntay magaalada haddaysan amni lahayn oo qofkii amniga ka shaqeynaya mushaarkiisa aan la siin karin xaggee ka dhisanaysaa guri caruurtaada xaggee iskoolka aadaya haddii adigu aada jeebka gashatay guri ku dhisatay macalinkii wixii la siin lahaa ama iskoolka loogu dhisi lahaa marka qofkaasna waa qof maan gaaban ummad uma adeegi karo waa qof dan shaksi ah ka shaqeeya in laga dhaqaajiyo waayo marka meesha maxaa yeelay systemkii yuu cadow ku yahay